xildhibaanadaas waxay mudan yihiin in loo hambaliyeeyo maadaama sidaa aan soo sheegnay iyagoo aan afurin aan ashaynin aan suhuurin ayay hawshii bilaabeen ilaa waxay ku gaareenna insha allahu tacaala sidaan ognahay ilaa 9 saac oo habeennimo ah ilaa ay ka doortaan guddoomiyihii oo aqalka hoose ee markii ay doorteen kadib waa tii oo laisfasahay la yidhi berito oo taariikhdu uu noqon doonto 28 aan ku soo noqonno si aan u dooranno labadii xubnood ku-xigeenkii koowaad iyo ku-xigeenkii labaad sidaa darteed waxaan leenahay waxay muujiyeen wadaninimo waxay muujiyeen geesinimo waxay muujiyeen dulqaad badan waxaynay badbaadiyeen shakigay ka saareen cabsiday ka saareen ummadda soomaaliyeed oo islahaa ama layslahaa ama nimankaan doorasho meeshay ka amaaday ka dhicin ayay markaasayto niyaddii ayay u dhiseen marka ilaahay waxaan ka baryaynaa marka hore ilaahay inuu niyaddii iyagana u dhiso waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay niyaddii u dhiso waxaan ka baryaynaa in ilaahay ku ilaaliyo hasaanada la saaray 4 sano inuu ilaahay ku ilaaliyo ayaan ilaahay ka baryaynaa haddaanu nahay xisbiga sinaanta ammaanka iyo midnimo ololaynta samo waxaanu sidoo kale aan leenahay guddiyada kala duwan oo loo hilsaaray doorashada sida ay u wadeen iyagana waa u mahad celinaynaa waxaanu leenahay shaqo fiican oo xasuus badan yeelan doona ayaad qabateen ajarkiisna ilaahay baad ka sugaysiin inuu idin siiyo insha allahu tacaala shacabka soomaaliyeedna mar kasta waa idin xusuusan doonaa arrintaa dhacday insha allahu tacaala waxaan ku elinaynaa mar labaad waxaan leenahay midnimadaas aad muujiseen kalsoonidaas aad siiseen ummadda soomaaliyeed idinkana mid oo kale taas oo kale ayaa xisbiga samo ayuu idin soo jeedinayaa waxaana codsanaynaa shacabka soomaaliyeed in ay garab istaagaan maxaa la yidhahdaa xubnaha baarlamaanka cusub hawsha ay qabteenna aan ku ammaano aan ku dadaalno inay horey hawsha ay u wadaan waxaanaan ka rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo in noo dhisaan dowlad noo dhisaan oo soomaalinimo ku dhisaan wadaninimo ku dhisaan qaran jecel ay ku dhisaan dal jecel ay ku dhisaan diin jecel ay ku dhisaan ayaan ka rajaynaynaa sidaas ayaanu ka codsanaynaa xubnaha baarlamaanka oo 11 ayaanu ka codsanaynaa insha allahu tacaala waxaan ku jirnaa maalmaha ugu dambeeya bisha ramadaan waxaan ilaahay ka baryeynaa inuu naxariistiisa nagu deeqo naxariistiisa inuu nagu deeqo 30 sano in ka badan ayaa soomaali is haysatay ilaahu naxariistaada noogu deeq si aynu u fahamno qarannimadu faa'iidadii ay leedahay midnimadu faa'iidadii ay leedahay soomaalinimadii faa'iidadii ay leedahay si aan u fahamno qarannimadii aan u ilaalino xuduudaheena oo beel kastaba hadda laga soo galaya si aan u ilaalino ilaahow adaa boqorka ilaahow nagu duug ilaahow ni toosi ilaahow nagu toosi jidka aan ku difaaci lahayn qarankeena soomaaliyeed sidaas ayaanu leenahay anagoo ku hadlaynaa magaca xisbiga samo insha allahu tacaala wixii kale waxaan jeclahay walaalahaygii kale wixii ay ku dari karaan inay ku daraan laakiin waxaanu leenahay soomaali ha israacdo soomaali ha midowdo adowga aan jebino insha allahu tacaala waxaan leenahay guul soomaali weyn guul wabilaahi towfiiq allahuma balaqtu waxaa haddana kusoo dhaweynaynaa mudane maxamed nuur cali baaba oo kalimateyn ka dhihi doona barnaamijkan maanta lagu taageerayo baarlamaanka federaalka soomaaliya onkoday oo taasoo lagu badbaadiyey marxaladii khatarta ahayd ee dalka oo ku jiray فليتفضل مدن محمد علي نور بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم سلام أنت مركورة سين سلامة ما جرد أنت للشيء له قدومي هالشيء ما يصير شيء صوم علينا ما يعني تحسبك السنان تا يو أمان كم من المؤلين تا أو جيج أو شر حرام تدحيس أسكسوب سدي حرام تدح أسكسوب سدي إن هم بريا isbedel kan oo baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka saraba doorashooyinka in xisbiga sinaanta aan hambalyo yamiri shirshana sukoy haddana ma siin sheegana tilaawo haddii laga hada oo faa'iido leh aad iyo aad aan faa'iidanta tilaabada kale inta dhammaan in la dhamaysto maalinta 26 bili hadda hadhaafni iyo 27 iyo 28 intaba maalin aqalka sare la dooraday maalin golaha shacabka gudoomiyaha la dooraday maalina ka-xigeenada oo aqalka hoose intaba aad iyo aad la shaqeeyay dadka oo juhdi kibiyay oo aad iyo aad in shaqeeya ilaahay ajar hasnaadna kasi Soomaalida wala badan ka jiri inay sanadkunba wala doorado hamba waxyaalahan qaar dhiyan ما الفلان لكن هذا هجيت بقول كي بقول هل ويا سينما هل جدا سينما مدحوينا هدي بقول ستان ودان كم هجيلي إني بس هستان هدي أو كياكري ولا إنجرنا أنت على هكرين تانكا dadka may fayda horta sidii oo markii iswaan sida Soomaalida waxa waaye xanuun xukun jecel kana sadafan maadaama hadda wal ibad horan dhiina iyo suubeen baarlamaanka bilaan oo gudoomiye kiheen kuwaad hormeeran laakiin iyada laga faraxsan Soomaalida bilaantana in qanaaday juhud badan suubaday hakilan wala ndiidin mujira laakiin illa dadaal maahin dadaalka ma ee hore caqabad yar jirta caqabadaas meel in kasal cadaalad dhasheen cadaalad meel la waayo wal socdo ma jiro marka may baan ka hambalyeeyay eedan ka hambalyeeyay xisbiga sinaanta amaanka midnimo oleenta iyaga oo golihii guddoonka oo baarlamaanka oo haweenka bixiyay haddana dadaalka dhiman iyo sidii hadda si wada ku wadeen inay ka dhamaaytaan aan hayna oo macnaha hirkirig iyo culeys badan oo hirkirig dadweynaha shacabigana culeys aan ka jira isna dhibaasin ka jirna tagay laakiin inay oo horlan socdo tilaabo la qaado eedina wanaagsan waana soo badan eedina soo badan xisbiga haweenka inta ka saabsan inta dhalinyarada golahiisa oo hadda oo inta oo golaha dhaha guddiga fulinta xisbiga madaxdiisa geega oo shirjira ay tan qobodooyan dhammaantiyo hasigaan baleeya boqol hasigaan baleeya ayna macnaha aragta ahaano dhicisownay xaalka meelfayda ka bilaawday haddana meelfayda halka dhamaaday wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أدبو ما سنيهاي مدنة محمد علي نور بابا oo ayaa hadalkiisa kalimateyn ku ahaa oo ku saabsan barnaamijkan maanta shir jaraa'idkan oo soo qaban qaabiyay xisbiga sinaanta ammaanka midnimo ololeenta taasoo ay ugu tahniyeynayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan ummadda baarlamaanka federaalka ee 11aad oo maanta badbaadiyay dalka Soomaaliyeed xisbiga Samo Mogadisho Soomaaliya